مسجد الروضة ومid ka mid ah masaajidada ugu weyn ee ku yaala suuqa xerada Xagardheer wuxuu masaajidkan hore uu ku sameysnaa jiingado balse xilligan waxa loo bedelay dhagax maadaama mas'uuliyiinta iyo waliba maamulka sare ee masjidkan ay sheegeen in dhisitaankiisii xilligan uu soo gabagaboobay hadda muslimiinta Soomaaliyeed iyo waliba kuwa muxsiniinta ee jecel khayrka ayaa waxay ugu baaqeen maadaama masjidkan dhisitaankiisa uu soo gabagaboobay xaragana laga jarin isla markaana in uu helo salaad lagu tukado ama roog si markaasina masjidkan loo dahfuro maamulka sare ee masjidkan ayaa waxay muxsiniinta intaasi ay u sii sheegeen in xilligan khayrka si weyn ay uga qayb qaataan maadaama masaajidkan hore uu dhisitaankiisa uu socday muddo bilooyin ah xilligan uu soo gabagaboobay ay u baahan yihiin salaad lagu tukada haddaba daawade ma jeceshahay khayrka oo ku bixi masjidkan oo u dhiman saliga oo qura ka qayb qaado oo kala xiriir maamulka iyo waliba maadanka masjidka lambarka haatan shaashada kaaga muuqda walaalada ina daawanayo dibadda iyo dalkaba waxaan halkan maanta ugu soo bandhigaynaa masjidkan aad aragtaan ee weyn oo dhismaha halkan uu marayo waxaan soo bilaabnay bishii saddexaad 2023 halkan ayaan maraynaa waxaa ku soo baxay dhaqaale fara badan haddana kow ma joogno arrimo badan buu u baahan yahay waa dareemi kartaan insha Allah taala waxaan walaalada ka codsanaynaa khayr Allah idin siiyo inaad masaajid soo taageertaan aad ka soo qayb qaadataan dareemihii baa inoo dhiman hoogi baa inoo dhiman salaaxiisi dhammaan baa inoo dhiman insha Allah taala Allah idin barakeeyo ka soo qayb qaata khayr Allah idin siiyo barakallahu fiikum waxaan u codsanaynaa masaajidkan ahl sunna wal jamaa magaciisana leeyahay masjidul rawda muslimiinta meel ay joogaan badal iyo dibadba dhaxdu naga joogaa in loo qabyo tiro wax alla wixii islaam ah oo wax tari kara masaajidka in laga soo caawiyaan doonaynaa waa idin ducaynaynaa haddii ilaahay saasaan ka codsanaynaa muslimiinta meel ay joogaanba masaajidkii in maadaama oo jiingadu ahaa qaxootigan in badan la deganaa in loo bedelo dhagax ay maartay jamaacadii muslimiintu ay codsadeen ayaa waxaan bilownay masaajidkii inaan dubino oo aan u bedelo dhagax markii masaajidkii dhagax loo bedelay waxaan soo bilownay bishii saddexaad 27 baan soo bilownay dhistaanka maantana wuxuu marayaa halka aad u jeedaan waxaan go'aansanay inaanu u soo bandhigno dadka muslimiinta ee Soomaalida iyo khayrkaba oo maartay maanta codkanagu uu soo gaarayo ama muuqaalkanagu uu muuqanayo hadii Ilaahay yiraahdo intana garanaysa iyo intaanan garanayninba inay masaajidka Ilaahay ay ka soo qayb qaataan maxaa yeelay masaajidka qofkii dhisa rasuulku soo sheegay kaleey salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay rasuulkan kaleey salaatu wasalaam qofkii beyd dhisa Ilaahay daraadiina u dhisa in Ilaahay jannada uu beyd uga dhisayo marka beyd baa lagu sheegay laakiin isku nooc ma aha beydkaas waxaan rabnaa marka nin walba inuu beydkiisa soo dhisto hadii Ilaahay yiraahdo adduunka in yar baa la joogaa muslimiintana waxa weeyaan maanta bangi u shaqeeyo ma jiro hay'ado taageera ma jiro dawladda taageera ma laha laakiin gacmahooda iyo isku tashi bay wax ku qabsadaan masaajidda ay ku dhisaan madaarista ay ku dhisaan saas awgeed marka waxaan ka codsanaynaa muslimiinta maanta hadii Ilaahay yiraahdo maartay maqli doonta ama arki doonta inta taqaana iyo inta aan aqoonin masaajidka weyn ee dhagaxa laga dhisayo ee magaalada Xagardheer ku yaala inuu u baahan yahay inaad nala kaalmaysaan oo aad nala dhameystirtaan aakhiri adduunka si aad ugu liibaantaan masaajidadu waa beyd Ilaahi hal shakhsi ma laha ummad wixii muslimiin ah shuqul ku leh bangi laga caawiyo iyo hay'ado iyo haddana laga waayinay wax taakula oo meel ay ka yarayaan ma jirto muslimiinta moogay waxaan muslimka Ilaahay ka codsanaynaa dal iyo dibad meel ay joogaanba beydka Ilaahay in nala dhameystiraan maanta meesha fursadda qamaanan ka saxaarad banaan ma taalo aan ka faa'iideysana maxamediyo meel ay joogtaan dal iyo dibad aan ka faa'iideysana maanta fursad qaali aan haysanaa waa beyd Ilaahay kama khasaarin ilma lagu masruuf maayo ninna qaadan maayo guriga Ilaahay baan ku dhisinaa marka waxaan maxamed waxaan ka codsanaynaa ninkii mu'min ama wixii ay soo gaadho codka anaga uu soo gaadho masaajidka in laga masaacideeyo
ugu dambeyntii daawadayaal Masjidul Rawda mas'uuliyiinta iyo waliba maamulka ee gacanta ku haya dhisitaanka ayaa waxay bulshada ay u sheegeen in uu soo gabagaboobay dhisitaankiisii sida muuqaalka aad hadda ka aragtaan. daawade hadda mas'uuliyiinta iyo waliba maamulka sare ee mu'addanka ugu horeeya waxay bulshada ka codsadeen inay ka qayb qaataan khayrka maadaama uu harsan yahay saliga ama rooga salaada lagu tukan lahaa. waad ku mahadsantiin daabashadiina.